wafdigii xildhibaanada ee ka socday golaha guurtida Soomaaliland ee muddooyinkii ugu dambeeyay hawlaha shaqo u joogay magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag ayaa maanta kulan ballaaran oo muddo saacada qaatay la yeeshay maayirka degmada Ceergaab Ismaaciil Xaaji Nuur. Kulankan oo warbaahintu dib u joog ka ahayd ayaa markii uu soo idlaaday waxaa afaafka hore dawladda hoose ee magaalada Ceergaab warbaahinta kula hadlay gudoomiyaha golaha guurtida u qaabilsan saddexda gobol ee bariga Soomaaliland Siciid Cabdullaahi Yaasiin. maayirka sida fiican ee warbixinta noo siiyay ee uu soo dhaweeyay ee aanu warbixintii aan u baahnayn ee xogaan u shaqahayd ee aanu u nimay gobolka kan qaybtii dawladda hoose iyo deegaanka mudanayaashoodii aanu ka helay waa ku mahadsan yahay intaasana nagu dhamaatay wassalaamu alaykum waxaan la kulmay gudoomiyihii gobolka isduwayaashii shalay baan la kulannay daraad maantana guddiga dawladda hoose iyo gudoomiyaheedii maayirkii Ismaaciil Xaaji Nuur baan la kulmay warbixin wanaagsan baan ka helay si wanaagsan baa hawshaas noogu dhamaatay. Adnaan Cabdirashiid Ali telefishinka caalamiga Horyal 24 TV Ceergaab.